يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقديني فريتبناد دروستيني كصاب سنايت فهم كصونك إلهي بما هذا سكاله سبحانه وتعالى إنه فضيديي إلهي وحن كبري الناس إذا وإنه كفضيديي إنه كأقبله سيدا رمضان تعالى وإنه سو قارسيينا إلهي إنه كأقبله سبحانه وتعالى. درسي كان فريتبناد وحن كقهل لدونا الأعذار العارضة وحيابها عذر دار هذا يكو إيمانيا قفك الصومن soonkiisa axkaamtiisa saameynta ku yeelanaya, cudurdaarka qofku ama afurka u banayn karaya ama maxaan ku yiraahdaa xaaladiisa soonka wax ka bedeli karaya. acraada alcaaridada waxaa ka mid ah marka koowaad in la fahmo horta diintan ilaahay noo soo dejiyey waa diin fudud oo diini waxa weeyaan yusur ah oo fudud ilaahay noo fudeeyay subxaanahu wa tacaala. marka labaad acdaarta sharciga waxyaabaha cudurdaarada ee sharcigu tixgeliyey iyo noocyadeedaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala. waxaynu ka hadli doonaa sidee qofka mariidka ah uu ku garanaya ama qofka bukay xanuunsanaya soonku inuu dhibayo suu ku garanaya qofku. waxaynu ka hadli doonaa axkaamu lmariidi fi ramadaan, axkaamta qofka buka ramadaanta uu qaadanayo waynu ka hadli doonaa. waxaynu ka hadli doonaa qofkii isagoo sooman soonkiisii gaajadii haraadkii ku yimid awgii uu miyir doorsoomay, soonkiisi muxuu noqonayaa? qofka gaajo darani ay qabatay oo gaajadii aad u taabatay ama haraad aad u daran uu qabtay oo taqajaran ku dhacay oo dee cunihii qalalo xaaladiisu adkaatay, fakhaafa calaa nafsihi alhalaak oo naftiisa halaag uga baqay, soomkiisa muxuu ka yeelayaa? waxaynu ka hadli doonaa qofka mujaahidka ah ee jihaadka ku jira ama inuu markaa galaba doonaya, soonkiisii muxuu ka yeelayaa? haddii uu isleeyahay hawshan culus ee aada gelayso ilaahay aada ugu dhowaanayso subxaanahu wa tacaala, dacfi baa soonkani kugu keeni karaya. ilaahay taysiirka iyo fudaydinta uu addoomihiisa cibaadada u fudaydiyay waxaa ka mid ah soomta ilaahay kuma waajibin qof awoodi karaya mooyaane. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u baneeyey oo cudurdaar uu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey, waana u baneeyey qofkii isagoo cudurdaar sharciya leh. wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj. alle subxaanahu wa tacaala diinta wax xaraj oo dhibaato ah maba yeelinba. idinka waajibaadkan laydin saaray ilaahay mashaqo iyo dhibaato idinlana dooni maayo. diintuna mashaqo iyo dhibaato iyo xarajba ma aha. waxyaabaha acdaarta ah ama cudurdaarada ahi waa laba qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa cudrun caarid, cudurdaar qofkii ku yimid oo haddana ka tegi karaya. cudurdaar qofkii la soo gudboonaaday haddana la filaya inuu iska tago cudurdaarka qofka ku yimid haddii alla idmo. qaybta labaadna waa cudrun mustamirun, waa cudurdaar qofkii ku yimid soonkiina u suuragelin waayey haddana daa'im ahoo qofkii haysta oo aan sina uga tegin. cudurdaarada markaa qofka ku imanaya waxaa ka mid ah inuu qofku xanuunsado, soonta lagu waajibiyey inuu xanuunsado, xanuunkaasoo caafimaadkiisii ka kaxeeyey. uu caafimaad qabay ee uu soconayey ee uu bad qabay ka kaxeeyey sixadiisii iyo caafimaadkiisii. waxaa u bannaan qofkaas inuu iska afuro inta xanuunka uu ka bogsanayo. faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar. maalmo kaleu qadaynayaa buu leey allah subxaanahu wa tacaala.
qofka marka isagu bukaanka mariidka ah ee naftiisa uga baqay hadduu soomo in xanuunku ku siyaadayo, ama naftiisa wuxuu uga baqay hadduu soomo in bogsashadii uu bogsan lahaa ay dib dhacayso oo xanuunkii maalmo kusii jiitamayo, ama naftiisa wuxuu uga baqay xubin jirkiisa ka mid ah xanuunsanayso la daweynayaa, haddii uu soomo in xubinkaa uu waayaba, sida maalan il baa loo qalay oo kale, ishaa loo qalay ama gacan baa laga qalay ama meelji wadnaha laga qalay ama calooshaa laga qalay, xubin jirkiisa ka mid ah waxaan ku idhahdaa caafimaad iyo daweyn ku socotaa. markaad wuxuu is yidhi haddaad soontid arma xubinkaasi aadba weydaa oo talfaah ama dhibaato caafimaad oo kale ay kula soo gudboonaataa. qofka caynkaasihi sharcigu waa karaahaystay, shareecadu ma jecla, oo sharcigu uma fasaxayo fasax taam ah inuu qofkaasi soomo. haddii ay caddaato inuu soontu ay dhibayso, haddii uu soomo isagoo cilalkaasi ay jiraan, marka inuu afuro waajib bay ku noqonaysaa. waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, naftiina ha dilina baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala. marka diidmada ilaahay inoo diiday nafteenna inaynu dilno laba micnoba way ku imanaysaa. in qofku naftiisii u halaago ama bad ha isku rido, sida dadka iminka tahriibaya ishalaagaya oo kale, oo go-aankoodu yahay ama soo dhereg ama dhimo, dhereg ama dhimo qorshahoodu yahay, naftiisii bad ha ku halaago ama wax naftiisa dhibaato u keeni karaya ha ku dilo, labadoo way soo gelaysaa. dadka qaarkood ramadaanta marka la joogo, marka uu iska afuran yahay uu caafimaad qabaa, xanuun baase ku jira. haddii laakiin uu soomo xaaladiisa caafimaadi waa ka daraysaa, way ka daraysaa. qofkaasi xanuunka haya ee aan u soomi karaynin, hadduu afuran yahayna uu roon yahay, hadduu soomana xanuunku ku kacayo, isla markaana xaaladiisu ay tahay xaaladee sidaa iska ah oo xanuunkaa lagu ogyahay, ciladaasi hadday ku timaado lana xaqiijiyo oo arrin sugan ay tahay oo dhakhaatiirtu sugtay oo isagu og yahay, dareenkaasi dareemayo, inuu iska afura u fiican. waa cillo daahir oo muuqanaysa. mararka qaarkood cilladdu waxay noqon kartaa cudurdaarka qofka ku imanaysa cillad qarsoon oo qofka iyo naftiisu isloog yihiin oo qofku uu afurayo. maala waxay noqon kartaa cilladda khafiga ah ciladii gabadhii xaydku ku imanayay oo kale, ama gabadhii nifaasku ku imanayay oo kale. waa cillad qarsoon oo de iyadu ay ogaan karto, marka waxyaabaha cudurdaarka afuridda banaynaya ka mid ah. waxaa dhici karta cilladu inay tahay cillad fududba, sida qofka hargab ku dhacay oo kale, oo duraysan yahay, uu yaro qof kufacaya, oo cabursan yahay, madaxaa yaro xanuunaya. uma banaana qofka marka inuu cilada yare khafiifka ah u afuro. waxaan isweydiin karnaa qofku muxuu ku garanayaa xanuunka uu xanuunsanayo inuu soontu dhibayso oo aanu soomi karaynin. wuxuu qofku ku garanayaa 3 arrimood midkood: inuu qofkan isagu caadadiisa caafimaad iyo naftiisa u warhayo, oo uu xanuunsanayo aanu og yahay aanu kari karaynin, xanuunkaa haya awgii inaanu soomi karaynin. inuu ku garan karayo malihiisa aqlabka ah hadduu soomo in ay soontaasi khatar gelinayso oo soontu saameynayso, ama in arrintaasi ay u caddeeyey in dhakhtara oo aaminoo lagu kalsoon yahay, aqoonna u leh cilmiga dhakhtarnimada, laguna kalsoon yahay diintiisa iyo aqoontiisaba lagu kalsoon yahay. qofkani hadduu soomo inuu soontu ay saameynayso, qofku wuu iska afurayaa, maalmo kalena wuu soo qadayn doonaa maalmaha uu afuray. marka uu ladnaado qadaha unbaa laga rabaa, markii xanuunkaas ilaahay ka kaxeeya subxaanahu watacaala. sanadaba ha bukoodo hadduu rabo, lama rabo qofku inuu ka guuro soontii qadaha uu soo qadlayn lahaa oo uu yidhaahdo si dadka qaarkii iska sahashadaan, cuntaan bixinaya, maxaan bixiyaa? sax maaha arrintaas.
xilliga qofku cunto uu bixinayo waa xilli uu kari waaye soon inuu soomo, taas weeyaan oo arrin la cadeeye ay tahay. sidoo kale qofka isagu xanuunsada oo xanuunka uu hayo oo xanuunkiina uu daa'imay, laakiin xanuunkii muddo markuu hayay ilaahay ka caafiyey subxaanahu watacaala, fursad iyo jaanisna aanu helin xanuunkii inuu qalleeyo ilaa uu ka dhintay, xaq qadaa qofkaa laguma laha oo laga raba ma jirto, wax dacaamahoo laga bixinayaana ma jirto, suuragal dee umay noqonba inuu qalleeyo. laakiin qofku haddii ay u suuro gasho intuu caafimaad helo oo ladnaaday ay u suuro gasho inuu qallayn karo, uu qallayn waayo isagu arrintaasi sahashaday oo ka habsaamay, hadduu sidaa ku dhinto maalin kasta qof miskiina laga quudinayaa oo maxaanku yidhaahdaa laga bixinayaa. haddii qof qaraabadiisa ka mida uu doono inuu ka soomana wuu ka soomi karaa. man kaana calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu, qofka deesan lagu leeyahay weligiisa ayaa ka soomaya. xalqada koowaad halkaa aan ku dayno maanta. wajazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum astawdicukum allah. منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار.